Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawada kusoo dhawaa muuqaal cusub kaasoo ku saabsan madaxweynayaashii la toogtay iyagoo xukunka haya. Dhacdooyinka dilalka qorsheysan ee ka dhaca wadamada waaweyn aad ayay hoos ugu sii dhacayeen sanadihii la soo dhaafay, balse waxay muuqataa weli inay dalalka qaar ay kasii dhacayaan. Haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqatay channelkeena, subscribe iyo like-ta muuqaalkana sii daawo. Mahadsanid. Dhacdooyinka dilalka qorsheysan waxay ka dhacaan dunida oo dhan, balse inta badan waxay ka dhacaan Bariga Dhexe, Koonfur Bari Aasiya, Saxaraha Hoose iyo Afrika. Madaxweynaha koowaad aan kusoo qaadan doono mowduuceena wuxuu yahay Idriss Déby. Idriss Déby wuxuu madaxweyne ka ahay waddanka Chad. Madaxweynaha dalka Chad, Idriss Déby ayaa si lama filaan ah ku geeriyooday kadib markii uu dagaal dhacay isagoo ku sugan jiidda hore ee dagaalka ay ciidamada waddankiisa kula jireen xoogagga fallaagada ah. Déby oo 68 jir ah ayaa ciidanka booqanayay xilli ay xoogagga fallaagada ku ah dowladdiisa ay ku howlanaayeen olole ay ku qabsanayaan dhulal hor leh. Dagaalka madaxweynaha lagu dilay waxaa fuliyay fagaalada ku sugan xadka u dhexeeya Chad iyo Liibiya, halkaas oo ah goobta uu booqday madaxweyne Déby. Mr. Déby wuxuu xukunka ku qabsaday afgembi dhacay sanadkii 1990, in ka badan 30 sano ayuuna xilka hayay. Idriss Déby wuxuu ku dhashay magaalada Fada ee bariga dalka Chad sanadkii 1952. Isagoo ah askari ka tirsan militariga ayuu sigaasigii lagu magacaabi jiray Hissen Habre ka caawiyay inuu xukunka ka tuuro Kibaki Othai sanadkii 1982. 1989 wuxuu u baxsaday dalka Suudaan kadib markii lagu eedeeyay inuu qorsheynayay afgembi militari. Laakiin hal sano kadib, xisbigiisa oo la magac baxay Dhaqdhaqaaqa Wadaniga ayaa kacdoon hubeysan oo ay sameeyeen xukunka uga tuuray Mr. Habre oo dalka dibadiisa u cararay. 1991 ayay ku dhawaaqeen in Mr. Déby uu yahay madaxweynaha dalka Chad. Madaxweynaha labaad waxaa lagu magacaabaa Sheikh Abeid Aman Karume, waddanka Zanzibar. Sheikh Karume waxaa lagu toogtay dhismaha xarunta dhexe ee xabsiga Afro Shirazi oo ku taala Zanzibar bishii Abriil 7, 1972. Waxaa la sheegay in nin ka mid ah ilaaladiisa gaarka uu fuliyay weerarka, inkastoo aan ilaa iyo hadda aan la hubin sababo la xiriira ku dhawaaqida geerida hogaamiyaha oo aan horey loo sii shaacin, taas oo aan laga iloobi doonin taariikhda Jasiiradda Xoreynta. Madaxweynaha saddexaad, Muammar Gaddafi, waddanka Liibiya. Waxaa lagu xasuustaa awooddiisii militari ee ka caawisay inuu xukunka la wareego sanadkii 1969. Waa la qabtay oo la jirdilay ka hor intaan la dilin bishii Oktoobar 20, 2011 kadib isku dhacyo taxane ah oo loogu magac daray dagaalkii sirta ee u dhexeeyay askarta daacadda u ahaa isaga iyo ciidamada NTC oo aan adeecin asiga. Arrintaasi waxay ka dhalatay kacdoonkii dalalka Carabta oo dalka Liibiya gaaray ilaa xukunka laga tuuray Muammar al-Gaddafi. Madaxweynaha afraad waa Cabdirashiid Cali Sharmaarke, madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Cabdirashiid Cali Sharmaarke wuxuu xilka madaxweynaha hayay muddo ku dhow 2 sano iyo bar. Madaxweynihii labaad ee Soomaaliya, Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ayaa la dilay 15 Oktoobar 1969. Wuxuu ahaa madaxweynihii labaad ee Soomaaliya ee si nabad ah xilka kula wareegay, balse dilkiisii kadib waxaa xukunkii dalka la wareegay militariga uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre. Cabdirashiid wuxuu sidoo kale noqday ra'iisul wasaarihii Soomaaliya 1960 ilaa 1964. Nambarka shanaad waa Laurent Desire Kabila, madaxweynihii hore ee DR Congo. Wuxuu ahaa madaxweynihii saddexaad ee DR Congo oo xilligaas loo aqooni jiray Zaire. Wuxuu dalka xukumayay laga bilaabo 1997 ilaa markii la dilay bishii Janaayo 2001. Markii uu xukunka la wareegay madaxweynihii isagii ka dambeeyay Mobutu Sese Seko wuxuu bedelay dastuurka wuxuuna dib u soo celiyay DRC oo laga soo gaabiyay DR Congo, wuxuuna tirtiray magacii hore ee ahaa Zaire. Laurent Desire Kabila waxaa lagu toogtay xafiiskiisa bishii Janaayo 16, 2001, waxaana isla markiiba loo qaaday Zimbabwe si loogu dabiibo halkaas. Geeridiisa ayaa la shaaciyay 18 Janaayo. Wasiirka caafimaadka xilligaas, Leonard Mamba, wuxuu ku sugnaa qolka labaad markii uu weerarka dhacayay. Madaxweynaha lixaad waa João Bernardo Vieira, madaxweynihii hore ee Guinea Bissau. Vieira wuxuu hogaaminayay Guinea Bissau 3 xilli oo kala duwan, laga soo bilaabo 1980 ilaa 1984.
wuxuu xilka qabtay markii labaad 1984 ilaa 1999. mar saddexaad ayuu haddana kusoo noqday xilka 2005 ilaa 2009. Vieira wuxuu Guinea Bissau hogaaminayay 19 sano. 4 sano kadib 2 Maarso 2009 waxaa dilay askartiisa saacado kadib dilkii taliyaha ciidanka General Batista Tagme Nawai. warbixinada ku saabsan dhimashadiisa ma cadda. dadka qaar waxay aaminsan yihiin in lagu dilay bam, kuwa kalena waxay aaminsan yihiin in lagu dilay rasaas kadibna lagu qarxiyay bambada. madaxweynaha toddobaad waa Samuel Doe, madaxweynihii hore ee waddanka Liberia. Samuel K. Doe wuxuu ahaa madaxweynihii laga bilaabo Abriil 12, 1980, wuxuuna hogaaminayay afgembigii militariga ee Monrovia ee xukunka looga tuuray William Tolbert. Samuel Kenyon Doe oo ah rugcadaa ka tirsanaa ciidamada qalabka sida oo xukunka kula wareegay qori, wuxuu madaxweyne ahaa 10 sano intii u dhaxaysay 1980 ilaa 1990. madaxweynaha saddexaad waa General Ibrahim Bare Mansara, madaxweynihii hore ee waddanka Niger. Mansara wuxuu ahaa xubin ka tirsan Maori ee qowmiyadda Hausa, wuxuuna xukumayay Niger muddo 3 sano ah intii u dhaxaysay 1996 ilaa 1999. wuxuu soo afjaray xukunkii militariga sanadkii 1991 ilaa Maarso 1995. Mansara wuxuu noqday taliyaha ciidamada difaaca ee dalkaasi. doorashadii baarlamaanka ee Janaayo 1995 waxay dhalisay xiisad u dhaxaysay madaxweynihii xilligaas ee Mohamed Usman iyo aqlabiyadda baarlamaanka oo ay hogaaminayeen xildhibaanada mucaaradka ee uu horkacayay ra'iisul wasaaraha Hama Abdou. taasna waxay sababtay in dowladda ay qalqal gasho ay noqoto mid awood la'aan ah. waxayna ahayd markii oo Mansara abaanduulaha ciidanka uu xafiiska la wareegay uu madaxweynaha noqday bishii January 27, 1996. geeridiisii kadib, ra'iisul wasaare Amadou iyo hogaamiyayaasha kale ee sarsare waxay ku dhawaaqeen inay yihiin madaxweynayaal. kadib, hogaamiyihii militariga Daouda Malam Wanke ayaa soo farageliyay, wuxuuna isku magacaabay madaxweynihii bishii Abriil 11, 1999, waxaana taladaasi lagu tilmaamay afgembi ulakac ah. intaas ayaana kusoo gabagabeyn doonaa madaxweynayaashii iyagoo xilka haya la toogtay. haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqtay channelkeena xogta Samiir Cadde, fadlan subscribe inoo saar. mahadsanid.